الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أصحابه الأجمعين. أنا هو أمال سناب جات حقسوق العملينا. السلام يا ولاله جروب كجرا إن ما أنت إن شاء الله وحن كقيب جليا ترتنكا وحن هاي سيرة قفكي لباد على إيدر صدح قضب إن شاء الله صدح قضب وحي كليهين قضب كواد إن أفريو أفرقف إن ماركتي إن هذا وحويان إن بوقضو qof xanuunsan saaxiib ama ehel laakiin ma filayo inaan helayo inaan booqdo qodobkan qodob fiican weeyaan waa xuquuqda isku leeyihiin walaalaha muslimiinta inay isbooqdaan ruux markuu xanuunsan yahay ruuxa ka kala soo booqdo insha Allah waan dadaali waana soo fiirin laakiin booqashadeeda waxay noqonaysaa telefoon insha Allah waayo qof xanuunsan hadda kuma ogi aagayga laakiin insha Allah telefoon baan diri doonaa yaa saa ula socda saddexaad waxa weeyaan waxa la igu yiri haye adiga maxaad jeceshahay oo rabtaa inaad nala wadaagto qof yahay amal bal is cadee ama waxa weeyaan hawsha ana qodob la ii diray walaalaha ii direen waa saddexdaas qodob biidnillah xarajeynaa inaan ka soo baxo shaqadeedan oo guto sida ugu fiican ee awoodayda ah biidnillah insha Allah waxaan arkaa barnaamij fiican in faati walaalaha wada insha Allah waxaan leeyahay barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayr ilaahi subhanahu wa ta'ala idin barakeeyo waxaa sugtaan waa aniga iyo maaragtay hawshii la ii diray anigoo maaragtay qabanaya sidii la iga sugayay biidnillah waa inoo hadhowdihay salaam barakaatu waa aniga amaal oo soo laabtay insha Allah waxaan rabay inaan sameeyo sambuuski baan marka hadda insha Allah bilaabay waa idin tusi sambuuski aan wadaa insha Allah hadda waxa waaye marka aan soo yar diyaariyo waxa idin ku soo laabanaa biidnillah basashi basal baarti kaaroto soo hoolay iyo basbaas halkan kaluun dabka ayaan kusoo qalajiyay waxaan kusoo darsaday xoogaa xawaashiyaan kusoo yar darsaday xawaashiyada maaragtay kuwaan aniga jeclaaday halkan sambuuski waa fuuliyadiisa rahmatullahi barakaatu sambuuski waa kana sambuuskan waxaan rabaa inaan geliyo foornada hoos insha Allah saliid ma rabi inaan ku dubo biidnillah waa kaasoo waxay ugu tiri Norway baad joogtaa haa abay Norway baan joogaa insha Allah tuulo kamid ah Norway baan joogaa barakallahu fiik soo dhawow xalaga yaab adigna inaad joogto qudaar baradho yaanyo kaarot toon basbaas basal insha Allah waxaan rabaa inaan ka sameeyo maraq hadda insha Allah dabkaan saaray biidnillah daboolkaan saari doonaa waxa waaye dabkaan u gaabinaa insha Allah cabaar markay soo karkartaa markaas digirta loo yaqaan xumusta halkan waxaan ku haystaa digir kale aan soo kariyay digirta cagaaran oo aan soo kariyay insha Allah waxaan rabaa inaan maraq isku daro intiiba insha Allah halkan waxaan kaga darsanayaa digirta xoogaa kaga daraa insha Allah biyo markaa ku darayaa karkara insha Allah waa markii waa inoo hadhowdi insha Allah markii aan soo dhameeyo maraqa iyo sambuuska diyaar ah timirta insha Allah markaas bay noo taafurka waad insha Allah wuxuu noqonayaa sambuuskaas oo aan masaajidka geyn doono iyo timir iyo insha Allah maraqaas oo la wadaagi doono dariskayga ya والله والله ما شوف ستة دخارة ما شوف فيدي ايوه هاي فاطمة درسك اوصل قال حوقينا يا علاقتي ان شاء الله الحمد لله كيفكم هاي سوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمال نفر ونكسن إن شاء الله أنت أفرتي وأنيكم مركل إذن كسو لابطي ويدري وهيدنا نفريو أفر قف أرنتا صحوا حوجا وإير صورة جلي ويدي أنيكوا وحوا وانسكير دالنا الصومالي والأفرنا يمر بيريا بريسكي باستدي يا سوجدي يا وحل بالس كرة ما قرأت عن جيرة دي مرقي هلو الله ساتا أديك نعرف كذا كبر حنونك كبر ما شاء الله دارك باي ودعي وحيرة ديكور ولي على شوي حنونيسا كليه نقولي ولا صفية مركا وعافية وانكو حنك مقعاق مركا حنسر ولا شاوع ويدي حالة دا ويدي عفوا مبارك دي بالس دهاي مركا إلهي سبحانه وتعالى كو عافية وين إن شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله يرى لهذا إذن مو وضع دميسترين عدكا إن ولا شيء وماركتي مركا وعي حوغا ويدين مركا وحويا وان جرى إن شاء الله
walaasha lama aysan ooyin xanuun akhwaati way xanuunsan tahay laakiin xanuunka lama aysan ooyin waxay la ooysay farxadda wicitaankan soo wacay way la ooysay subxaanallah yaa allah ma aysan filanayn inaan soo wacayo waa sidaas mararka qaarkood subxaanallah ilaah subxaana watacaala walaalihiina faray khayra ka siiyo lahaada waxa ahayd waxaan wacayay walaalaha ka mida oo aan jeclahay ilaahay dartiisa u jeclahay waxay ahayd qayb ka mida barnaamijkii la ii diray walaalihii soo weydiinaya inay ka qayb qaataan barnaamijka waxaa laga yaabaa bay dhaheen guddiga inay dad maaragtay soo cudur daartaan marka la xiriira waa nasiibkaaga inaad boos ka hesho waa macquul oo walaalo safar iyo ay galaan ay soo cudur daartaan marka la xiriir insha allah whatsappkan haya qaraab insha allah waa inoo iyo mar kaleeto iyo barnaamijka qaybtiisii saddexaad qaybtii koowaad iyo qaybtii labaad waa iga haysaan insha allah waa inoo mar kale والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال سو دوادا أدبان دي سلام يا حن بلاوي يا قيبتي سدحات برنامج كيجي ugu horeysa magacayga aniga waa Amaal waxaan joogaa wadanka Norway waxaan la shaqeeyaa ciyaalka waxaan ka shaqeeyaa baanahagaha ama iskuulada hada anoo shaqada jooga waan waxaan rabaa inaan idinkan idin la hadlo si aan u guto barnaamijkayga u dhamaystirto insha Allah marka waxa weeyaan xogaa waa laga yaabaa inaan waqtiga ka yar qaato barnaamijka qaybta saddexaad waxay ahayd inaan anigu doorto meel waxaan ka hadlayo marka insha Allah waxaan dooran doonaa biidnillah aayadii aan saaki soo galiyay anigoo tixraaca insha Allah biidnillah waxaan ka hadli doonaa ciyaalka maalka kama hadlayo ilmaha waxay yihiin nolosha quruxda ilmuhu xaq bay leeyihiin in la koriyo oo si wanaagsan loo koriyo si uga haystaan aabaha iyo hooyada xasuus in ruuxdooda la koriyo muhiim waaye mararka qaar ilmo 8 jir ah 7 jir ah 6 jir ah oo aan aqoonin suura Faatixa akhrin karin subxaanallah muxuu ilmahaasi tarayaa cuno wadamadan la joogo waxaan badanaa ku dadaalnaa iskuulka ama baanahagaha meelahaas marka la geenayo cunadoodan ku dadaalnaa dharkooda inaan sii keena Norway aan joogno waxa way aad waxa ugu badan qaadashada ay gaaladu ilmaha muslimiinta qaadanayaan ilmaha muslimka waxa weeye waa dhibaato dagaalka inuu qaato dhunaan diintiisa la inaga rabaa si ilmahan aan u badbaadino badbaadada ilmahan si inaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku xirno oo maaragtay diintiisa barno ma ogid hadhowdii waxa dambeyn hawayaan ilmihii in maaragtay la baro diintiisa in la baro quraanka in lagu la dadaalo maaragtay masaajidada in la geeyo macallimiin loo raadiyo quraanka waxay timi gabar yar iyagu imtixaan galay masaajid ku galaayo marka ducooyin baa laga rabay marka ducada hurdada maaragtay ay garanayeen waxay ugu tiri ii qor ma garanayee marka hooyo weydii insha Allah markaad guriga tagto waxay ugu tiri hooyadayna ma garanayso ma taqaano lama yaabayo hooyadaas inayna aqoonin laakiin ka waran ilmahaas adiga dhibaato ma leh qofkaada weyn inaadan aqoonin waad baran kartaa laakiin ilmahan waa inaad ku xirto marka ugu horeysa cid taqaana waa inaad geyso masaajidada waa inaad macallimiinta u geyso waxaan idin kula dardaarmayaa ugu dambeyntii tawakkul in la yimaado Ilaahay subxaanahu wa ta'aala la tala saarto dadaal la yimaado ilmaha lagu dadaalo wax la baro oo diintiisa la baro raarujin laha walaalaha kaliya in cunada iyo dharka laga fikiro maaha ruuxda ilmaha waa in laga fikiro ilmaha mustaqbalkiisa waa in laga fikiro inuu yahay ruux muslim oo barito maaragtay aan gutay saddexdeedii qodob oo la iga rabay qodobka ugu dambeeyay waa kana inkastoo sidii aan u rabay aan wali u gudanin laakiin aan shaqada ku laaban ugu dambeeyay insha Allah waxaan aniga naftayda idinka waxaan kula dardaarmayaa cabsida Rabbi insha Allah khayr fara badan baan idin rajaynaya ana saddexdeedii qodob